kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV-ga Hilaac qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa daahfuray kalfadhiga afraad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa shir gudoomiye u diyaar garowga shir ka dhacayo magaalada Abu Dhabi ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta madaxda caalamka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay ku biiritaanka dawladda Soomaaliya ururka bulshada rayidka ee Bariga Afrika gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdullaahi ayaa ka hadlay khasaarihii ka dhashay roobkii ka da'ay gobolada dalka safiirka cusub ee Soomaaliya ee dalka Qatar Maxamed Axmed Doodisha ayaa laga gudoomay warqadaha aqoonsiga madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagreen ayaa kala hadlay maamulayaasha iskuulada ku yaala magaalada Baydhabo in lagu dhigo farta afka mayga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ceelal ay ka qodayso deegaanada lagala wareegay Al-Shabaab maleeshiyaad ku dagaalanta deegaanada Puntland ayaa la kala qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ka qayb galay kalfadhiga afraad ee labada aqal ee baarlamaanka guud ahaan warka TV-ga Hilaac waa naga intaa